dhalinyarada ka shaqeynayso iyo howlwadeenada xalinta khilaafaadka dadban ka shaqeynayo dadaalka ay wadaan in la helo mujtamaca Soomaaliyeed isla nool wada shaqeynayo horumarka dalkana ka shaqeynayo is amaan gelinayo oo heshiis ah hadafka weyn laga leeyahay xalinta khilaafaadka dadban waxaa way bulshada inay isdhexgasho arrimahooda khaaska ah oo ay xaliisan karaan ayagoo u marayo nidaamka mujtamaca uu leeyahay dhaqanka shareecada islaamka inay ku xaliyaan khilaafaadkooda taasna waxay yareynaysaa dacwooyinka fara badan oo la awoodin in qarash iyo maal lagu bixiyo waqti dheerna lagu bixiyo taas aad iyo aad bay u khafiifinaysaa ayadoo mar kastaba laga maarmaynin in maxkamad la aado haddii labadii dhinaca oo arrimo isku haystay ay heshin karin waxaa lagama maarmaan ah inay maxkamad aadaan heshiiska bulsho iyo labada walaalo is haysata inay heshiyaan waa ahdaafta weyn oo shareecada islaamka loo soo dejiyay sulxiga mar kastaba khayrka ku jira cadaawanimada iyo dagaalkana mar kastaba dhibaato leeyahay markaan qiimeynay sanadkii hadda aan soo shaqeynaynay arrinta khilaafaadka dadban waxaa noo soo baxday natiijo aada u weyn in xarumihii ka shaqeynaya arrintaas cabashooyin fara badan ay soo gaareen cabashooyin fara badan ay xaliyeen dadkii loo xaliyana aada iyo aad ay u faraxsan yihiin waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa xarumahaas garwadeenada jooga oo isku dhex jiro kuwa bulshada iyo kuwa kale oo sharciyaqaanada iyo kuwa odayaasha dhaqameedka iyo kuwa maaragtay haweenka iyo dhalinyarada iyo culamaa udiinkaba shaqadii ay soo qabteen sanadkii lasoo dhaafay aada iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa shaqo wanaagsan bay qabteen waxaa kale la ii sheegay in keesas badan markay arkeen inay geli karin ay maxkamadaha ay u gudbiyeen oo maxkamadihiina hadda soo baxday in keesaska markii la arko oo ay xallin karin isba labadii qof ay isdiidan yihiin markiiba talo sharciyeed laga siiyo la yiraahdo jidkaasaad u baahan tihiin mara taasna waxay sahlaysaa maxkamadii shaqadeeda sababta oo dadkii og waxay isku haystaan iyo waxa looga baahan yahay maxkamada markay tagaan ayagoo weliba talana la siiyey inay aadaan arrintaasna aada iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay tan kale waxaa bilaawanahayaa hadda dood oo cadaaladda sidii loo horumarin lahaa cadaaladaas ha ahaato cadaaladii oo nidaamka dowladeed ku dhisneed oo loo yaqaano formal justice in la hirgeliyo dalka dhan goobaha hadda la xureeyay naftooda la gaarsiiyo waxaa kale taas barbar socota cadaalada loo yaqaano informal oo loola jeedo cadaalada bulshada oo lagu xalinayo nidaamka dhaqanka iyo diinta islaamka suuban arrimaha qoyska ay u badan yihiin in la xaliyo marka taas waxay keeni kartaa in mujtamaca uu ahaado mujtamac isku xiran mujtamac isfahamsan marka doodan waan furnay waxaan ku guuleysanay in
hadda ay ka howlgalaan gobolada dalka, ururo maaragtay bulsho ay kulamo sameeyaan, ay ka hadlaan cadaalada faa'iidada leedahay. dad badan waxay aaminsan yihiin burburkan waxaa noo keenay cadaalad daro, cadaalad daradiina waxay keentay amni daro, amni daradiina waxay keentay dhaqaale la-aan iyo saboolnimo, tiin waxay keentay dagaal iyo burbur dadkii inay isbaabi'iyaan ayagoo haysta weliba khayraadkan ilaahay ku manaystay bad i barib. marka hadda waxaa loo baahan yahay marka ururadan bulshada oo arrimahan loo xilsaaray inay doodan furaan. cadaalada waxaa looga baahan yahay see loo hirgelin karaa, goobahee cadaaladda looga baahan yahay in laga hormariyo, tan maxkamadaha caadiga ah iyo midtan kale oo dhaqankaba in laga shaqeeyo. haddan koonfur galbeed ka imaaday, runtii shacabka meel kasta oo joogaba wuxuu aada iyo aada ugu baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay. marka ayadoo las walaaleysanayo dowlad iyo shacabba in loo soo jeesto cadaalada in wax laga qabto ayaa loo baahan yahay. tababaradan noocaana way socon doonaan insha allah, maadaama aan aragnay sanadkan faa'iidadiisa waan sii socodsinaynaa tababaradan inay jiraan. waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay booliskana inay nala joogaan, naftooda ay dareemi karaan in shaqadii loo diray oo ahaa nidaamka iyo kala dambeynka dalka inay ka shaqeeyaan nafteeda ay u sahli karto haddii nidaamkan aan u shaqeynayno hadda xarumahan furnay loo shaqeeyo, in booliska naftooda booliska naftooda ay hooshii loo idmiday ay u sahlanaan doonto oo ay heli karaan macluumaadkii ay u baahnaayeen xarumahan markay imaadaan naftooda.